maanta halkan waxay noogu qarsoontay doorashadii gudoomiyaha guud ee ardayda dugsiga sare ee Balanballe Secondary School. doorashada waxaa u tartamayay saddex musharax oo kala ah Xuseen Xade Guuleed, Sakariya Cabdirasaaq Maxamed iyo Cabdille Yaasiin Ogle. doorashada waxaa la maray laba wareeg. wareegga koowaad ee saddexda musharax ay ku tartameen waxaa ku soo baxay Sakariya Cabdirasaaq Maxamed iyo Cabdille Yaasiin Ogle. labadooda wareeggii labaad markii ay codayntii ardayda sameeyeen waxa ku soo baxay waxay kala heleen Cabdille Yaasiin Ogle oo helay 155 iyo Sakariya Cabdirasaaq Maxamed oo helay 152. sidaas darteed waxaa sanadka 2024-2025 ku guuleystay gudoomiyaha ardayda dugsiga sare ee Balanballe Cabdille Yaasiin Ogle. waxaan codsanayaa gudoomiyaha soo baxay iyo musharaxiintii tartamaysay iyo inta kale ee kala dooranaysay waxay yihiin hal arday oo ka tirsan dugsiga sare, waxay yihiin hal xubin ay isku yihiin. waxaan rabaa inay isku duubni sameeyaan oo ay haddii ilaahay idmo waxqabad muuqda oo kii sanadkii hore ay uga tageen gudoomiyihii hore iyo ardaydiisii ay dugsigan uga tagaan haddii ilaahay idmo. waxaan u hambaleynayaa saaxiibkay Cabdille Yaasiin Ogle oo xilka gudoomiyenimada ku guuleystay. waxaan rabnaa sanadkan si fiican inaan ula shaqeyno dhammaanteen. anigu si gaar ah saaxiibkay u yahay oo si fiican baa ula shaqeyn doonaa insha allahu tacaala. waxaan rabnaa dhallinyaradana ka codsanaynaa, khayartana ka codsanaynaa inay si fiican ula shaqeeyaan. dhammaan ardayda waxaan u hambaliyeynayaa dee maantayto gudoomiye kaliya ma noqon karo, dhammaanteen gudoomiye aan wadanahay dhammaanteen. waxaan kaloo hambaliyeynayaa dee mid iga codeeyey iyo mid iga codeeyeyba inta waad mahadsantihiin. insha allah dee dib baan isugu soo noqon doonaa, waan wada joognaa. waxaan ka codsanayaa dee maanta halkaas aan u taagnahay dee biri insha allah dhammaanteena waxaan ka codsanayaa dee inaan wada shaqayn buuxdo yeelano. dee murashaxiintana waxaan ka codsanayaa doola kala gaar ah sameeyna inaan wallahi isku soo celino insha allah. waxa qabadkeena oo bartaa ka sii bilowdo. aad iyo aad baan u mahadsantihiin. xilka maantayto waxaa u yeeshay nasiib inay ku tartamaan saddexdaas arday. wareeggii koowaad waxaa ku haray walaalkay Xuseen Xade Guuleed, halka ay wareeggii ugu dambeeyena ay isugu soo hareen Cabdille Yaasiin Ogle iyo Sakariya Cabdirasaaq. garin laba nin kama wada farxiso. wax walba adduunka la qabtana qof unbay guushu raacdaa. waxayna guushii ku raacday walaalkay Cabdille Yaasiin Ogle. runtii saddexduba waa saddex hawlkar ah. iskuulkaanna runtii juhdi fara badan iyo dadaal fara badan ka soo bixiyay 4 sano ay joogeen. sidaas awgeed waxaan leeyahay dhalinyaro miina kala guulaysan laakiin waad wada guulaysateen. walaalkayna waxaan leeyahay mas'uuliyadda uu maanta qaaday Allah ku sharfo. dhalinyarada la tartamaysay ee saddexda waxaan ayaga si gaar ah loo dardaarmaya markii la tartamayo meeshaan la joogo dadka qofba si uu u safirtaa. qof wuxuu u safirtaa in laga guulaysto xilkaas asagu uu dhimanayo u leeyahay dhaxal ahaan oo kale inuu leeyahay buu marka hore meesha soo dhigtaa. qofna wuxuu u soo dhigtaa oo uu u yimaadaa meesha in ay tahay meel masraxa oo bulsho codkeeda one vote one cod ah ay meeshaas ugu imaanayso. marka hankiinu yuusan noqonin mid gaaban. saaxiib iyo wada guulaysateen. waxaan leeyahay wada shaqayn wacan. gudoomiyaha sanadkan 2024-2025 Cabdille Yaasiin Ogle waa nin hawlkar ah oo runtii aan wada naqaane si qurux badan loo wada shaqeeyo. ardadana waxaan ayagana leeyahay arday adinka doortay maanta Cabdille Yaasiin Ogle. haddaad codkiina ku keensanteena waxaa la rabaa waxqabadkiina way wax ku qabanayaan inaad noqotaan baalaha uu ku soconaya, taayirada uu ku duulayo, maskaxda uu ku duulayo inaad adinku noqotaan baa la rabaa. waxaan leeyahay guul wacan. maanta ay taariikhdu tahay 6 bisha 10aad 2024 waxaa xarunta dugsiga sare ee Balanballe ka dhacday doorashada gudoonka ardayda dugsiga sare ee sanad dugsiyeedka 2024-2025 oo ay ku tartamayeen saddex musharax oo kamid ah ardayda aqoonyahanka ee iskuulka lagu barbaariyo. ugu horreyn waxaan rabaa inaan u mahadceliyo Allah subhanahu wa ta'ala xafladan si qurux badan noogu dhameystiray. mar labaad waxaan u mahadcelinayaa macallimiinta iyo maamulka iskuulka oo juhdi ballaaran geliyay inay xafladda qaansanto.
intaa kadib waxaan u hambaleynayaa saaxiibkay Cabdilla Yaasiin Ogle iyo dhammaan ardayda dugsiga saraba maanta waxa uu qabsoontay hawl aad iyo aad u weyn waxaan ka codsanayaa in iskuulka laga sii wado waxqabadkiisa horeyna loo socodsiiyo manhaj dhow wax la kala guuleystay waa la guuleystay dhammaantanada waa guuleysanay horey